سائل كان يقول لي هاي إنجليش بكسو قري لكن معناها جود وحويه نرشوا وحيلا هاي عقبة فربضان مركع عقبتها قفكة اللي يرى سيرجو بكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قرت أنت أدناش هاي ونفتك وجرت nolosha caqabad la'aan ma ahaanayso mar walba challenge baa ku haysta challenge-ga ku haysta iyo waxa ku hor taagan adduunyada wasaa u abuuranba ilaahay baa saa ugu talagalay laakiin adiga waxa la doonayaa markii aad wax kugu yimaadaan oo waxaad rabtay iyo jidkaad haysay ay wax ku hor istaagaan waxa ku hor istaagay ha u dabcin ha u jilcin ha u hoggaansamin isku day inaad ka gudubto maxaa laga gudbi karaa dhowr arrimood baa laga gudbi karaa kow inuu ruuxu leeyahay go'aan adag haddii go'aankaagu uu daciif yahay oo marka horeba qalbigaagu daciif yahay waxba ma qaban kartid waxbarashaad gashay iskuul baad gashay madrasaad gashay jaamacad baad gashay imtixaankii ugu horreeyaaba kugu adkaadayba markaasaa tihi war waxaan ma wadi karee balaayo allah ku riday dhaaf waabaad isaga tagtayba waad ka tagtay ilaa waxbarashada haddaad ka tagto inaad xamaasho maa markaa suuqaad tagtay waxaad tihi bal xamaal ii raadiya xamaal baa lagu soo helay waxaa lagu yidhi jawaanada qaadqaad meesha xoogaa shilmaa baad ka heli jawaankii ugu horreeyey markaad qaaday baad la kuftay markaasaa waxaad tihi wallahi ilaa tanna wadi karin waa isaga carartay waxaa lagugu yidhi bahal tahriib la yidhaahdaa jiro yurub baa la tagaayoo xoogaa doolar laga soo dhuftaa tahriibku isagoo khariban buu haddana wuxuu u baahan yahay adkaysi fara badan meeshan dhex markaad sii marayso muxuu ahaay saxaraha liibiya baa inta lagu helay bay qola ku xidhatay markaasaa waalidkaa lala soo hadloo la yidhi waan haysanaayo lacag soo dira maalmaad xabsi ku jirtay waa lagu yar camuujiyey waa lagu garaacay meeshaa markaad maraysood rafaadaad tiri wallahi tan laguma sii socon karee dib baad usoo carartay haddana adiga haddaabaad uun cararto un maxaad qaban karta noloshu waa caqabado sax laakiin challenge-geeda waxa la rabaa inaad kaga gudubto marka hore inaad leedahay casiimo adag go'aan adag inaad leedahay sax go'aan adag markaad leedahay qodobka labaad dhibaatada kaaga imaanaysa waxaad rabtay inaad xaqiijiso dhibka kaaga imaanaya waa inaad u sabirto saas daraaddeed baa qur-aanka kariimka waxaa ku soo aroortay sabirka iyo sabra iyo dadka sabraya ammaantooda aayadaha ku soo arooray tira koob ma leh nabigeenuna muxuu yidhi sal alla alay wasalam maa ucطiya axadun caطaa'an khayran wa awsaca min asabri bnu sal lla alay slam ruux lama siiyo siismo ka fiican ama ka guda weyn oo ka fiican waxa la yidhaha sabirku waa shayga bini aadamka uu suurtageliya inuu wuxuu rabay gaadho ama ha noqoto wuxuu raadinaya adduunyo ama aakharo waxaad raadinaysay sabir baa lagu gaadhaa saas daraaddeed qur-aanku wuxuuna yidhi wastaciinuu biالصabri waالصalaaة sabirka kaalmaysta waa qodob marka waa inaad go'aan adag marka hore ku gasho waa inaad adkaysi u leedahay waxaa qodob kalea inaad ilaahay kaalmaysato waxaase ka horreeya qodobka isaga shayga aad qabanayseed ku dadaalayso waa inuu yahay shay naafica shay ku anfacaya shay khalada haddaad ku dadaasho hadda kaasi waxa weeye wadidiisaa marka horeba khaldanba laakiin shaygu waa inuu yahay shay naafica adduunyadaada anfacaya aakhiradaada anfacaya wanaagsan diintu ayna diidanayn waa inuu yahay markuu yahay shay naafica haddana dadaalkaaga inta ugu dambaysan aad bixisaa la rabo
الله محو يري وحنوش النبي يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك كد دال وحكو أنفعه محل قد ميسي وقضبك حقيقة واستعن بالله إلهنا كالميسو وقضب كاس أنك بني آدم بأنهاي واتبر يرنهاي أود ديني حالة دين وإسكا كوبانت سوما وحان قبان كرنو إسكيري عقلي جين وكوبان يهاي أود دين وكوبانت هاي يا أود بوحدة إسكاله الله سوما مركو إلهي كالميسو توار وتراهدو إله إيقو كالمي يا إله رزق حلالا ربا إيقو كالمي إله قور حلالا ربا إيقو كالمي إله شقة حلالا ربا إيقو كالمي إله وحبرش حلالا ربا إيقو كالمي واستعينوا بالصبر والصلاة صلاة عبادات كانوا واد كالميسن ألا بريدي سنوات كالميسن أدكي سنوات يالان طيب انت مركز اسكو درتي هدي بهاش كوفر مي ويدا كور عاجسين هدي تاني كو سعون ويدو توكله كدورو لكن هيسديبي mid baan wadi waayay bas waayo nolosha waa isaga tagay adar meelahan iska taagtaagnana iyaga daa hasha wax la xamili karma risq ilaahay qoray ha wuxuu ku leeyahay sheekh adiga risq soo ilaahay ma qorin ha anoo caloosho hooyo ku jira soo risqiga lama qorin ha waa la qoray soo iska helahayo warda sabab u baahan tahay war adiga risq ma la qoray mise lama qorin sheekhu waa la qoray ha bas hadii la qoray maxay lu goynaysaa marka iska saxanaya risq waa iska imaanaya halkaas uu maray warays diibin asbaabta la imo sooma saas darada nabiga wuxuu yiri wala ta'jaz dadaalka iyo alla kaalmaysiga markaad gasho ha aajisin ha isdiibin isku day xaawil soo garan marka la isku day ha isdiibin noloshu waa saas hadii tan aad socodsiin weydo sina kaaga socon weydo tu kale dhinac kale wareeg dhinac kale ka soo gal hadana ama tu kale wa ka door laakiin marna waa isdiibino nolosha inaad ka dhacdo marna ha ogolaan ma quraanjada ka liidata quraanjada in la yidhi jiray al-imam al-kisai alayhi rahmatullah oo imam jaliil ahaayo culumta luqada carabiga mid kamido takhasus kula cilmiga sarfiga leeyda raga loogu noqdo kamid ah culimada waaweyn ee la weydiiyay ee kutubta ka qoray qawaacid u sameeyay maalmaha kamida markuu cilmiga bilaabahay ayuu bilowgiisii hore cilmigii baa ku adkaaday waa fahmi waay waa u furmi waay waa ku rafaaday ku noqo waa u socon asagoo khaatir billahi ka taagan khaatir billahi oo rabo inuu isaga tagaba ayuu maalintii dambe isagoo socdo wuxuu soo maray quraanjo yar oo bakti wadata waxbay tunka ku wadataa iyaduna way la fiirtaa Soomaali quraanjadu way yartahay wax culusna waa wadata markaas waxay fuulaysaa darbiga markay fuusho dhexda markay joogtay soo dhacaysa markaas ay hadana ku noqoni hadana way fuulay dhexda markay joogtay soo dhacaysa quraanjadii uu dul istaagay sheekhi waa fiirsaday waa fuusha waa soo dhacda waa fuusha waa soo dhacda waa fuusha waa soo dhacda say ugu noqonaysay bay markii dambe darbigay rabtay korka uga baxday ayadoo waxeedii wadata oo culayskii wada bay meeshay rabtay gaadhay meeshaas uu darsi kala baxay mar wuxuu yiri quraanjo yar oo nafta iyo lafta yarta ale ba ujeedadeedii gaadhay say ugu noqonaysay anoo nin oo inta leego bini aadam ilaahay aqliisi miyaan ka carari cilmiga sarfiga hadda yaa oo saytay alaa waa inaan ka sal gaadho meeshii buu ka bilaabay ilaa uu markii dambe noqday sheekha ugu weyn ba cilmiga sarfiga ma fahanteen marka adinka quraanjo ma ka liidata quraanjo ujeedadeedii gaadhay say ugu noqonayso ugu madaxadkay adiga hadda quraanjada ka liidata ka war oo waxay quraanjo ka carari weed aad ka cararto marka waxa la rabaa adkaysi u yeesho nolosha challenge-geeda caqabaadkeeda dhibaatooyinkeeda waxaad rabtaana wax wanaagsan ha noqdo jidka aad u maraysan jid saxsan ha noqdo adkaysina u yeesho waxaad rabtaan waxbarasho ha noqoto adduunyaha ha noqoto aakhiraha ha noqoto waxaad rabtaan oo marka xalaasho diinta u gashay naam الله